السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقد وناagsan waa anigu Cabdinaasir Cabdikariin Jino oo ku magac dheer Cabdinaasir KS meel walba aad joogto waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabto mar walba aad hesho sabab aad u dhowl cadeyso mar kale iyo qiso waa aniga ninkay ku dhacday waa aniga maalmahan ma kamid ah waxaan jeclaysay inaan aado Djibouti cidna kama aqaano cidna oo Allah ahayn kor igala socdo maalmahan ma kamid ah baxay harkiisaan tagay hargeysa waxaan ku bartay ilaa baawarka marka la raaxo dad lagu barnaa family socdaan ayaa lagu daray aan bartay meesha ku bartay maqaayada isla galnay waa isla qadeynay galabta isla joognay habeenkii hotel isla jiifanay maalinta dambe waa isla soo raacnay baawur oo ilaa Djibouti oo ku geenaya ilaa xuduudda loo yaqaan markaas oo wada raacnay oo xuduudda ay maana loo yaqaan imaanay tahriib waa marbiina noqdeen sidaas aan ugu galay marbiinta xitaa qaar kamid ah wayna qiyaameen meel waxaana la geeyay oo Djibouti ahayn waxaana la inta Djibouti waa lacagna waana la qaatay lacagta ma xasuusto faran wala cadadeedana ma xasuusto waan hilmaamay lacagteen ibnay subaxdii waaga ma ku bariyay meelaan la geeyay waxaana la maanta inta gal habeenkan inta jiifta bari subaxdii inta ka bax Djibouti waa joogtay subaxdii waaga doo bari wax joog mala ilaa dad tuugo oo noo heshiiyay waaye qof kale ayay la balameen oo meesha nin kale noo imaan subaxdii wuxuu dhahay meesha ay joogtiin Djibouti ma dhawo halaas lacag dhiibeysan markay saacadii lacagtii ogolaanay oo inay dhiibno mid kale lacagtii aan la soo qaaday waxaan la keenay Djibouti markaas soo galnay lugleen oo soo galay markay Djibouti soo galnay oo magaalada oo la soo galay dadkan isla socon waxay ahaayeen family waxay ahaayeen maamo weyn iyo gabar oo roon anigoo kale iyo wiil oo dhalinyaro iyo oday oo nin weyn isla socdeen dabcan waa inay is dhaleen waa inay ilma adeer dad is dhasheen ahayn alaamo markay meesha dhacday sidaas oo la soo galay ay mid kamid ah nina is yaqaaniin la hadleen waxa la dhahay meel hebel aan joognaa dad wax weydiin meesha hebel waana la xaafad meesha magaalada meel maqaayad ay joognaa la sheegay ninkii wuxuu meesha ay ku imaanayso intuu sidaas dhina waxa la yaali la socdo waxay wiilaan la socdo waxa la wiilku sheegay meesha ku haro ay isdabar amal adiga imaado wuxuu dhahay khalaas waaye ana waan wala soo socda adiga inay isdabarto waaye ana isdabarto waaga ibari waxaan meesha ana qofka ma aqaan asiga anigoo kale waa asba qof loo oo dilshar oo ku noqon raba waxaan okay dib malahan maqaayadii taga meesha inta quraacda xitaa ma ugu socoto oo fikiro inta ka bilaabay horta meel aad ma baqaan inta iga jirta wareera gale ninkii ay imaaday odagii markuu imaaday salaamnay waxa dhig wiilkayga inta iskaga har magaalka Djibouti inta joogta dhinacaan Soomaaliya Soomaaliya in joogaan adiga walxo i tiri dib malahan markuu dhaqaaqay waa ciishooda waxa soo xasuus inuu qabiilka maxay ilaa waa qabiil ahaan hadda laga wato dadkaas nin ay isku leefiina ama isku qabiil yihiin ee Israa'iil wada mar waxaan ogaad inuu qabiilka maxay mar waxaan ogaad inuu qabiilka jahli yahay waayo Soomaalinimadii dhan ayuu ka tagay ninkan oo macnaa nafti maxay jiray laf jeclays ayuu dadkaas iga wata aniga meesha iga dhaqaa way isiimas ina meesha taagnaad aniga kaligeeyga oo meel ah ka bilaab ma aqaano lacag meesto markaas waxaan dhahay inaan ka daba ordaa waxaan dhahay xitaa laba maalin aan guriga ay joogo si aan macnaha magaalka u fahmo kadib anab isdabaraan horta awal jii waxa u baahan tahay in aad laba maalin ama hal maalin aad guriga joogtid si macnaha magaalka u fahamtid odayga way iga ogolaaday meel loo dheer soo bax guriga tagay guriga qabeystay waa sawi maaladii marka tagayn subax salaada tagna meelaan la jiifiyo oo joorada هذا هو الوين أو كله صليان ولا حتى كتيفة ما اللي ما كان كتيفان ولا كتيفة دي أكو جيفاني دور كعمل ولا صوك عين مساجد كأبني وصوت كان أنا مركو حيوبر مدرسة ماشي أو حكي بلا بلا وفكري نرج وكيف فكره وحك فكر أنا سيدا قريهم كجوج لا وكفكري وفيري وعارك أضيق ما شاء الله أضيق وحوا أضيق أهل الصلاة مساجدك صلاة سوي مساجدك هذا هبينك وبحر صلاة سندي سكان بقول أضيق ما شاء الله الصلاة هاي وجري إسكالها أو ده معنا إسكار وحكم أنس أضيق أنس أكتر جدا لا أنا كان ورت واحد صلاة مكلا جار لو تبرئ جوجي
adoo hurdays maarta oo ilkaha aadan rumaysanin ah waxaa la keenaa canjeero shaah iyo saliid ifkan waxa uu nacbanahay anoo rumaysan canjeero shaah iyo saliid liisoo hordhigo naagta guursada waa kuu sheega intaba canjeero shaah iyo saliid ay siin alxamuum markay sas eed waa arkay odagana misala cunno oo duqe gabadhii iyo habartii ilaan guri waxaa lagu daray dumarkaa lagu daray qaybta naagaha lagu daray anaga dhalinyarteena labadaas oo odagaas weynka ee dhalinyarta ah iyo labadaas wiil dhalinyarta iyo aniga afarteenan intaa jiifanaa odagana gurigiisa oo ka tirsan yahay bas laakiin waqti uu noo imaada duurka uu soo salaama waa fikri guri cidda marka cid maasha allah ahlu salaad ee waa oo aqwaan ee waa salaada maasha allah ku odayga akhriyay waxa uu wada orag inuu wadaad yahay waa fahmay marka system waxaa marka guriga aan kula waa la wareegi lahay oo odayga meesha laga jeclaan lahay ilaa aniga meesha waxaa ku imaada beri mas laba beri inaa joogsama waxaan sameeyey salaad subaxi masaajidka oday ugu hormaro salaad subaxi masaajid safka hore aan ku tukanay allahu akbar oday masaajidka ugu hormaro soo baxay masaajidka soo baxay inta dadkaana isla quraacana qaddiyo kale adoo ogtahay nin oo cid kamid yani nin oo musaafir le iyo qadada la siinaa way kala duwan yihiin qado meesha iyo xaalaga nolol keenaa oday gurigana qado heer saro ku cunaa duurkii oo kale ani weli waxaa sameynaya markii oo masaajidka salaad subax kusoo tago guri markaa quraac canjeesa islid waa baxaa guriga dhalinyartaana gurigay joogaan meelaha fafadhiyaan jirjimada ani guriga dhanaan ka baxa magaalka wareega inaa iska aado waqti qadada markii la gaaraa imaana masaajidkaas oo tukana qadada imaana waa qadayna markaa qaday adin guriga waa ka tagaa wareegaas filina iska geli jira filina aada maqribka casirkii oo kale masaajidka ku tukana wareega iska aada maqribkii oo kale masaajidka ku tukana kadib le guriga imaan jira haddana salaad subax haddana waqti markii la gaar shanta waqti salaad masaajidka odayga le daba kacay masaajidka kusoo tukana oday woob iga helabo ilaan waxaa noqday nin oo masaajidka ugu horeeyo oo guriga sistamkiisa ilaaliya oo guriga dhex joogin oo waqtiga marka la gaaro kale oo iska baxay wareeg aadayo soo noqona wuxuu wiilkayga maasha allah tahay ahlu salaada tahay had kadib aniga adiga isku cuntaan miis weyn aan nolol samay ani asiga odaygiya waxaa noqday inaa ku cunto noqdo meeshii awal liidhahay laba bar kadib waa bixi wax walba waa qadarta alle nasiibkayga arag kamaan waxaa ku gaaray dadaalkayga waxaan arkay odayga iyo guriga systemkiisa ogaaday maxaan sameeyey systemka guriga oo la rabin micnaa inuu qof dhalinyaro ragga u dhex joogeen markaa quraacda aniga subaxdii wareega iska aaday duhurkii qadada la imaanaya qadadii haddana waa baxa wareega aadaa casirkii ma soo noqona masaajidka ku tukanaa duurkayga galaa maqribkii imaana waa casheenaa maqrib xitaa maqribka isla marka horaa laga casheyn jiray markaa tukado waa casheenaa banaanka iska aadaa habeenkii 4 saac camal jiif la imaanay marka oday waa ogaal wuxuu maasha allah kadib ani adiga isku sufradaanaan heer waxaa gaad canjeeradii shay saliidii ka weynaad waa ka barmoose canjeero iyo maraq qadada bariis haweysan baasto hilib moos kaal iska arag heerkaasa ku gaarmaano sidaas micnaha maxaan ku kasbaday odayga idhahay micnaha ani adiga micnaha oo gurigan lagu keenaba inaa lagu beri misal beri aa joogo oo micnaha markaa fahmaa isdabaro heer waxay gaar dadkii asiga oo iga jeclaysay micnaha inaa aniga ka fadli badnaado oo iga jeclaysay taasna maxaa sababay salaada iyo qiimeynta aadamiga micnaha oo qofka meeshuu kaa joogo waad fiirinaysa